muuqaalkani maanta wuxuu ku saabsan yahay wax walba oo muhiim ah inaad fahantid markaad doonaysid inaad baratid luqadda Englishka ama haddii aad horaan u taqaanayba. waxyaabaha aad doonaysid aad ay u fara badan yihiin insha Allah ta'ala. halka maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha muhiimka ah inaan dhamaanteen wada fahanno markaan doonayno inaan baranno luqadda Englishka. Lambar 1, Englishka muxuu yahay asagu? kama hadlayno halkuu ka soo asaasmay iyo sidoo ku yimid, balse waxaan ka hadlaynaa phonetic language ma yahay mise phonetic language ma ahan. waxaana muhiim si ah inaad fahantid phonetic language maxaa la dhahaa. Phonetic language waxaa la dhahaa luqadda siday u qoran tahay loo akhriyo ama sida loo qoro loo akhriyo sida Soomaaliga camal. balse Englishka in badan waxaan aragnaa in ereyga siduu u qoran yahay aana loo akhrinin. marka Englishku phonetic language ma ahan. tusaale ahaan knife siday u qoran tahay akhrinayna haddaan dhihno waxay noqonaysaa knife, right? ayadana sidoo kale rite noqoni. laakiin Englishku maadaama uusan phonetic language ahayn sida loo qoro looma akhriyo inta badan. shayga labaad, grammar maxaa la dhahaa? Grammar waxaa la dhahaa shuruuc ama wadooyin la raaco markaad doonaysid inaad adeegsato luqadda xagga qoraalka ama akhrinta markay tahay. shayga saddexaad, parts of speech. in badan waan maqalnaa laakiin maxaa la dhahaa? Parts of speech waxay ku tusinaysaa sida ay ereyadu iskugu xiriiraan ama xiriirka ka dhaxeeyo markaad doonaysid inaad adeegsatid jumlad dhameystiran. Parts of speech ayada waa 8 weeyaan. qaybaha hadalku waa 8. waxyaabahan ku hadlayn marka 8 ay u qaybsamaan. midda koobaad waa shayga afraad aan doonayna inaan fahanno waa noun. maxaa la yiraahdaa? Noun waxaa weeyaan erey ku tusinaya a person, qofka, place ama goobaha, ama concept or thing ama ashyaada ku tusinaya. tusaale ahaan school waa meel, goob weeyaan. abdi magac weeyaan. pen waa shay weeyaan. marka kuwaas dhan waxaa la dhahaa noun, waa magac. shayga shanaad waxaa weeyaan pronoun. maxaa la dhahaa isagu? Pronoun waxaa la dhahaa ereyada la isticmaalo badalka magaca. tusaale ahaan badalkaan dhihi lahayn abdi waxaan dhihnaa asaga. he waa asaga. she ayada. asaga ama ayada waa pronoun. shayga lixaad oo aan doonayna inaan fahno waxay tahay adjective maxaa la dhahaa? kuwani waxay qeexayaan ama faahfaahin ka bixinayaan magacyada ama magacyaalka. tusaale ahaan beautiful, she is beautiful, ayadu way qurxan tahay. Fatuma is beautiful, Faadumo way qurxan tahay. marka beautiful waxay faahfaahinaysaa ama si qeexaysaa Faadumo siday tahay. marka waxaa la yiraahdaa adjective. shayga toddobaad ee aan doonayna inaan fahno waxay tahay verbs. waxaa la yiraahdaa ficladan sameyno ama xaaladaha ay yihiin magacyadu. tusaale ahaan haddaan action tusaale ka bixino, qorista maadaama ay ficil tahay waxaan dhihnaa marka waa verb. ama xaaladda uu magaca noqon karo waxaa weeyaan tusaale ahaan I am abdi, haddaan anigu waxaan ahay abdi. marka amtaasi waxay tahay verb. insha Allah ta'ala ayagoo faahfaahsan ayaan casharada soo socda ku dhigan doonaa insha Allah. shayga sideedaad aan doonayna inaan fahno waxay tahay adverbs. ayagu maxaa la yiraahdaa? adverbs waxaa la yiraahdaa waa ereyo qeexaya ficilada. tusaale ahaan quickly, dhaqso weeyaan. she runs quickly, ayadu dhaqso ayay orodaa. shayga sagaalaad ee aan doonayna inaan fahno waxay tahay preposition. maxaa la dhahaa? Preposition waxaa la dhahaa ereyo yaryar oo laga hor isticmaalo ereyada, way soo hormaraan. magaca ayaad ka fahmi kartaa prepositions. marka waa ereyo yaryar oo inta badan loo isticmaalo, loo adeegsado marka la doonayo in laga hadlo goobaha ama waqtiga iyo waxyaabo kale oo fara badan. insha Allah casharada soo socdayaan ka hadli doonaa. tusaale ahaan in preposition weeyaan. on sidoo kale preposition weeyaan. The pen is on the table, qalinku wuxuu saaran yahay miiska. on marka waxay tahay preposition, booska uu yaallo qalinkan ayay muujinaysaa. You have to come on time, waa inaad xilligii lagu talagalay aad imaadaa. waqtigii lagu talagalay waa inaad timaadaa. marka on waxay ku tusinaysaa xilliga aad ku imaan lahayd. shayga tobanaad ee aan doonayno inaan fahno waxay tahay conjunctions. maxaa la yiraahdaa? Conjunctions waxaa la yiraahdaa ereyada isku xira jumlooyinka. tusaale ahaan abdi and Fatuma are students. abdi iyo Faadumo waxay yihiin arday. marka waxay tahay erey isku xirayo abdi iyo Faaduma. marka waxaa la yiraahdaa conjunction. shayga 11aad ayaan doonayna inaan fahno waxay tahay interjection. maxaa la dhahaa? Interjection waxaa la yiraahdaa ereyo, yani xagga grammar marka la yiraahdo
aanan ku tiirsanayn ereyada kale, waxayna muujiyaan dareemaha qofka sidoo isaga dareemaya. Qof ayaa wuxuu arkay wuxuu la yaabay, marka wuxuu dhahayaa wow. ereyada oo ama wow ayaa la yiraahdaa interjection. insha Allah taala waxaan rajaynaynaa muuqaalkan ka faa'iiday oo aad xoogaha yara fahantay Englishka qaabku u shaqeeyo. insha Allah taala muuqaaladeen xiga waxaan ku dhigan doonaa luqadda Englishka bilow ilaa dhammaad muuqaaladeen soo socda insha Allah. nala socod wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.